عازم مشاء بنميم عازم مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم آياتها نين أدرم بالله كسر سبحانه وتعالى ولد ابن المغيرة وأنا صفات إله سبحانه وتعالى وكتل ما من الصفات حن أيهين قد كمان تقارب أيون الصفات كايا دغن كا إسكالي وددك markay subaxdii soo kacaan shaqo kale aan qabanin maxay ka ayaan maanta dhan hebel ku diraya alaab soo sheer gareynaya qof kale uu tusinaya sidii qofkaas uu kan ugu soo jawaabo cajarad buu soo duubaya kan uu diraya kan uu warka duubay kan uu gudbinaya wixii wax kale isagu mas'uul isaga waxa farxad galaysa inuu arko ummadda wada xanaaqsan ummadda madaxa iskula jirta TV-du soo fariisanaya idaacadu soo fariisanaya ama magaca wariye ayuu wataa markaas ummaddu isku diraya dadka nabinimada ka shaqeeya waa ashraarul khalq sida nabiga sallallahu alayhi wasallam waa dadka ugu sharta badan makhluuqaadka walaalkay ha noqonin ولا شيء كفجو أذيقوا النقون كرا أو ولي برادين كرا إن أد نقطة ذلك كوب أقول فضلك بدن أو قيمة بدن أو أخلاق ذا وناسن محاكا ليجا يدك كوب أقول لي ته كوب سيد الدخسجة صفات كالدخسجة لدخسجة صفات كسوحة ويا باليري جلك بني آذنك كمتة وميلها برفون كلامريو وح أو دون تام ميلها بوجها يدي عنك له هالنقون قف إسكله دخسجة صفات كيسة هالنقون واحد نقطة قف سيد الشنذا كلا أو مركزي ومدة أوجد بيه شنذا واد أرك ubax bay ku dagaysaa ubax kale ku dagaysaa meelaha udgoon bay joogtaa si ay dadka ugu soo gudbiso wax macaan oo malab ah qofkaas oo kala noqo ummadda khayrka u soo gudbi ummadda aqoonta ka maqan u soo gudbi dalkaaga wanaaga u soo gudbi dibdhiska u soo gudbi horumarinta u soo gudbi isjaceelka u soo gudbi maxabada u soo gudbi faamilada sukeen qof ka shaqeeya dibdhiska dalka iyo dalka noqo barakallahu fiik hadii asaan noqo soo ma aha adduunkana ummaddu way kugu ogaanaysaa oo iska qabanaya aakhirana oo inaad meel xun ku dambeynayso waxaad la mid noqon doontaa oo markaas macood noqon doontaa kubaas nabiga dhibi jiray calayhi salaatu wasalaam kubaas nabiga ku yiri in hada illa saaxir ku yiri waa saaxir kuba ayaga ah ayaad macood noqon doontaa ambiyada dhibi jiray ka fogo waa sifaat xun aakhirada dumaad liibaantida barakallahu fiik salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh